Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarey kusoo dhawaada mar kale Somali Arsenal Fans TV. Maanta sidaa ogtihiinba waa Friday, gamekii la sugahayay in badan ayaa caawa bilaabanayo. Arsenal versus Crystal Palace wuxuu gameka bilaabanaya caawa markii ay tahay 4 saac. Wax badan ayaa sugaynay, long wait is over. Gamekii caawa ayuu bilaabanayaa. Haddana waxaan sameynaynaa some preview aniga iyo saaxiibkay waa daalay ama Sparky sida hore idinkugu sheegayba. Marka hore saaxiibkay ayaa kusoo dhaweynayaa saaxiib xalkaas subaxda aad bay u wanaagsan tahay, aadaan u fiicnaa maasha Allah. waxaan rajeynayaa idinkana inaad fiicantiin asxaabay, islaan anaga caafimaad u qabno oo kale. So sida ogtiin waxaa hore ugu dhaadhici rabnaa gamekii ahaa Crystal Palace iyo Arsenal oo lagu ciyaaray guriga Crystal Palace. So waa game kaliya Premier League ugu horeeyo, kuwa kale waxaa la ciyaari doonaa insha Allah tomorrow. Hore ayaa ugu dhaadhici doonaa hadda. Okay akhyaarey, sidaa hore ugu ballansaneenba gamekan ayaa preview gareyn doonaa. Sheyga ugu horeeya ka hadli doonana waa current Arsenal form. Arsenal formka hadda ay ku socoto, sida ognahay Arsenal pre-season fiican ay kusoo jirtay, playasheeda on form ay ahaayeen. Waana markii ugu horeysay oo 10 years kadib Arsenal fans ay aadayaan gamekoodii ugu horeeyay iyagoo diyaarsan. Maxaa ka leedahay arrintaas? Arrintaas arrin aad u wanaagsan waxa waaye Arsenal inay diyaarsanaato seasonkan. Ana horta Arsenal inta taageera weligii ma arkin ba ayagoo diyaarsano season diyaarsan soo galay kan ka hor ayagoo diyaarsan oo xoogan. Marka game waaba iska cad iyo madow, hataa haddii laga badiyo waxa waaye wax dhib ma sii lahaanayso, sababtoo ayagoo diyaarsan ay imaadeen. kuley ragga kalena rag oo dagaaltamayo iska garanaysaa, Zaha, Ayew, Eze, dad adag waaye xoogan, Doucouré. marka waxa waaye Arsenal waxay kala kulantay leedahay, laakiin maaragtay shalay waxa waaye waxaa la wareysanayay Patrick Vieira ninkii captain uu ahaa, coach uu ahaa Crystal Palace. wuxuu yiri Arsenal takadan waa title contenders, ay ka macnatahay inay koobka u dagaaltamayso xoogeeda markuu ka yaabay. So waxay la tahay Arsenal inay badanayso, chance fiican waaye 5 game ugu horeeya Arsenal inay badanayso jecla. Sidoo kale ayadana waxaa xusid mudan in last season ay naga badiyeen, waliba si xun naga badiyeen. Gamekii homekeena markaa imaadeen draw ayna geliyeen. ma is leedahay it is time for revenge? waa xilligii aan argoosan lahayn kana argudan lahayn. Yes Arsenal waxa waaye zaid uga arsanay tokana. Arteta iyo tolkiisa waxa waaye xanaaqsan yihiin, waxay kamid ahayd tiimasha ka reebay inay Champions League Arsenal Crystal Palace gamekeeda ugu dambeeyay hadii ka badi lahayn waxa waaye Champions ka tagi lahayn. ayakii Brighton iyo Aston Villa ma Southampton ma aragtay dadkaas waxa waaye Premier League no team yar baba jiraba, waaba lagu dhagaaba adoo soo taagan lagu dhagaas leedahay gameka waa badinay kan waa soconay. marka ayada qabqable iskeed, laakiin Arsenal tawar ma aheenin, hadda way xoogan tahay. waxaan umaleynaa Jesus inuu shaqaysan doono meesha, shaqo wanaagsan leh. Jesus waa shaqaysan doonaa. sida ognahay waa pre-season fiican ayuu helay, hat-trick ayuu xiray. sidoo kale isna inkastoo asaga uu hadda form fiican oo ku socdo, hase ahaatee Arsenal dadka ay ka hor imaanayaan waa rag ayagana ciyaar galaya ma ahan. Zaha iyo Eze iyo Ayew iyo dad iyo Mateta dad bay ka hor imaanayaan. marka ma is leedahay inkastoo hadda weli Arsenal wax proper right back aan la haynin, dhanka right back difaaca aan laga haynin nin adag oo hayo, oo hadda laga yaabo inuu dheelo Ben White, inuu dheelana laga yaabo loo isticmaalo tripkan. Tomiyasu oo soo kacayna inuu dheelo ayaa laga yaabaa. marka yaa is leedahay raggaas? Probably horta dhanka Zaha wuxuu ku aadan yahay dhanka left back, waayo asaga left wing forward uu dheelaya sooma right back uu aadan yahay. marka right back uu ku aadan yahay, marka yaa is leedahay ninka uu qaban karaa? wallahi Tomiyasu in la ciyaarsiin jeclahay, fit saasan ma si aha tokada horena waa ka hadalnay. marka Tomiyasu in la ciyaarsiin hada Ben White hadii la ciyaarsiiyo wili waa si xoogana, waxa waaye dad oo istaagayaan badinayna gamekan, waa wixii la jiray do or die. marka waxaa leedahay any player meesha la ciyaarsiiyaba waa iska dhicin karaa. Very comfortable. waxa waaye Arsenal tokada waxa waaye confident win. haddii laga badiyo hataa caadi waaye, laakiin Arsenal way badinaysaa ila tahay. ma fahmano taageerayaasha aad u faraxsan yihiin, hadda haddii laga badiyo waxa waaye doesn't bring any difference. so waxa waaye insha Allah
waxay ku dhamaato arkayna cawada 4 saac markii la gaaro. waa gartay iyadana dhankaana waa dhinaca kalena waa left back oo hadda shalay waxaa soo kacay waxaa isagoo hadlay aan arkay Keintini oo lahaa diyaar baan u ahay gamekana diyaar ayaan u hosheeyay waana fit ayaan ahay. Dhanka kalena waxaa taagan Zinchenko labadooda asagana yaa is leedahay waa gamekan waa lagu soo bilaabaya. Zinchenko probably Zinchenko ayaa lagu soo bilaabi doonaa. Tomiyasu maxaa lahaye Teni waa player fiican waa type gameka oo ciyaaro waa laakiin waxa waaye 100% fit ma aha. Zinchenko Bloni dhaxda ku celcelinaa nin dheer difaac ma aha waa weerar waa midfield waa garab oo soo gala marka shaqo badan u baahan dadkan marka difaac in laga gal ma u baahno wuxuu u baahan yahay in Bloniga laga haayo oo maaragtay automatically in la weerar maanto dhan ay rabaan fahmano laakiin haddii tira difaaca ka gala waxa waa you are inviting them to come to your place fahmano boxkaaga inaa ku casuunto waa haddii aad tira difaaca gala so Tomiyasu maxallahay Keintini halaya bro I'm sorry ina fit soo noqota rajayna play aad fiican hata lagu tashto laakiin gameka waxa iska leh Zinchenko. Sidoo kale iyaduna waxaa hadda la isweydiinaya waxaa ka mid mar horan aan ka hadalnay waa positionkan hadda difaaca Arsenal hadda difaaceeda waxaa ognahay bilaabaheedu koowaad waa Gabriel hase ahaatee ninka ka xigay ee la taagan mar walba waa la bedelaa mar waa Holding ayaa noo jooga ilaa hadan waa jooga waana fit waxaa jooga Ben White Saliba ayaa isna la hadalaya marka gameka maadaama uu yahay Saliba wali Arsenal Premier League oo ciyaar u safanin maxaa is leedahay maanta waxaa leedahay waa fiirnayna asaga ku soo bilaabeena mise waxaa leedahay waa gamekan ugu horeeyay inaan khalkhal galno ma rabne ragii horaa meesha ciyaaraya oo Ben White ama Holding ayaa la soo celinaya. maya Holding ma la soo celinayo Holding waxa waaye waa player waxa waa oo disciplinekiisa oo hoos u jiro waaye oo maaragtay adaab aan iska xanaaqayo oo red iska qaadanayo marka waxaa leenahay Ben maxallahay Holding horta ma ku jiro storyga waxaa soo haray William and waxaa soo haray wiilkan la Ben White ayaa bilaawaysa jecla Ben White waa player aad u fiican markii Bloni dadka aan heesano oo maaragtay teamka Bloni oo celcelinayo fursado badan oo create gareey anigaas hadda aragtay hadii kaleba laakiin Saliba difaac ahaan bisuu ku fiican yahay marka Ben White lagu soo bilaabo hadii Saliba lagu soo bilaabana waxa waaye ma iga yaabinayso wax oo la yaab leh ma ahaan leyso laakiin maalintii lagu soo bilaabo Holding waxa waaye fans dhan way kici doonaan waa gartay inkastoo aniga different idea aan qabo oo positionka aan rabo inuu William Saliba uu dheelo waayo asaga wuxuu kaga fiican yahay Ben White markii la dhaho distribution banon qaybin asaga kaga fiican daraad waxaan arkaynay ciyaartii Sevilla iyo Chelsea qaabka uu ciyaaray banon qaybin oo difaac markii arkayo labada dhinac ka difaacanayo asagana ani personal ahaan asaga favorite iyo asaga iga fiican Ben White asahaatee halkaas ay kaga tagayna marka haddana waxa u dhaadhaceena maxaa is leedahay gamekan uu ku dhamaan doonaa predictionkaaga muxuu yahay Arsenal waxay ku badi doontaa masalana gameka game oo dad oo sirraasanayo waay laakiin Arsenal waxay ku dhamaan doontaa 3-1 inay ku dhamaanayso jeclaadee 3-0 ku dhamaaneen maaragtay fursadaha kaliya aan goolasha aan xireyno marka aragno pre-seasonka oo different ee tahay maaragtay markii Premier League leeyahay tiimaha Premier League aad u adag yihiin sanadka hore hata markii ay ciyaareen labada game kor labada ku dhamaanaysa scrap game kal 3-0 ku dhamaanaysa fursado badan ana create galeen we could have scored 4 goals but Lacazette was not willing to score how he was not sharp so waxaa la rabaa marka maaragtay player sharp afka hore markuu ku ciyaarayo maaragtay dhameystirayo Chana si fiican Arsenal create sanadka hore laakiin wax xira la waay marka 3 waa ku dhamaanay 3-1 3-0 waxa jeclay 3-1 inay ku dhamaanayso marka anna waxaan leeyahay ku dhamaanaysa 2-0 waayo waa Premier League labada team waa diyaarsan yihiin high expectation ay leeyihiin sida ognahay Arsenal iyo Crystal Palace waxyaabo hadda similar ay ka yihiin baa jiro waayo markii la fiiriyo hadda sanadkii ugu dambeeyay progresska Arsenal ay sameeynaysay ee Crystal Palace almost waa the same ayaa dhihi kartaa waayo Patrick Vieira ayay keensadeen shaqo fiican ayuu ka qabtay halkaas Salzburg ciyaaryahanna haddana saynaya ayay sameeyaan ayagana cusub marka coach ahaantooda markii loo fiiriyo xitaa coach walba hadda gamekan waa gamekiisa ugu horeeyay seasonka pressure ayaa saaran waayo hadda marka aad fiiriso Crystal Palace fanskeeda waxa inkastoo ay expectationkooda aysan ahayn sida Arsenal waxa laga rajeenay
oo hadda expectationkooda ay ku egtahay inuu top 10 uu soo galo form fiican oo ay ku socdaan xagga League Cup-ka iyo FA Cup-kana haddii helaan ay iskaga qancayaan, halka Arteta looga baahan yahay tripkan minimum inuu top 4 u tago oo Champions League football uu galo, dhanka kalena Europa League ama cup kale inuu qaado. maxaa ka leedahay meesha markii loo fiiriyo labada coach iyo expectationka laga rajeynayo? Arteta maaragtay waxa waaye Vieira somaha pressure hadda saaran tahay zaid. Arteta saaran tahay maxaa yeelay play sanadka hore wuxuu ahaa ninka ugu maaragtay lacag isticmaalka badan ee Premier League ee players soo gato 100 ka badan oo isticmaalay asweel sanadkan sidoo kale uu sameeyay, marka wax yar looguma fadhiyo at least inuu cup soo qaado, inuu top 4 galo, though will title contenders hadda ma aaminsan hata maaragtay Man City waxaan inaga xoog badan yihiin seriously, waxaan haalan dhahayo hadda waxaan aaminsan Liverpool nagu xoogan tahay ma fahantay ayadana waxa waaye meel la saaraa asoo dadka maaragtay oo waxa waaye attack-gooda shabka ee waa hadda, marka ani title contenders meena top 4 hadoo galo maaragtay dhib ma laha, laakiin hadduu geli waayo waa sheekada Arteta kabihiisa hore u qaadanay baagtiisa iyo meelaha ka yaalo. markaad waxaa leedahay minimumkiisa waa inuu top 4 u tagaa. ka waran haddii uu tegi waayo top 4 Champions League ciyaar uu miskareeyaha, ama haddana uu dhanka kalena uu soo qaato kaabaha European Cup, hadda inuu for example hadduu uu soo qaato Europa League Cup hadduu uu soo qaado kale dhib ma laha haddii top 4 oo sagelin Premier League oo 5 iyo 6 hatta 7 hadduu ku dhameysto, laakiin Europa League oo soo qaado still waxaana moogtahay Champions League ku jirnaa. That was our main focus, so Arteta has a good plan so that waxa waa inuu maaragtay Europa League oo soo qaado ama okay kale oo la imaado top 4 oo soo galo. Marka Europa League soo qaado wuxuu ku jiraa Champions League, wax dhibana ma laha intaas waay. marka saaxiibkii isna ideagiis waa aragteen oo wuxuu yiri gameka waxaan rajeynayaa inuu ku dhamaado 3-0 ana waxaan leeyahay 2-0 Arsenal gameka inay badiso ayaan rajeynayaa. marka khiyaaray gameka previewgiisa iyo waxyaabihii aan ka oran lahayn inta ayay naga tahay, idinkana nagula wadaaga commentiga sidee maxaa rajeynaysaan, sidee Arsenal sidee u badin doontaa, Arsenal baa reynaysa mise Crystal imisa gool ay Arsenal ku badin doontaa. asxaabay nagula wadaaga ra'yiga aad ka qabtaan halkaa iyo score prediction kiinaba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.